kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena maxaa cusub oo aynu ku falanqeyno wararkii ugu dambeeyay siyaasadda Soomaaliya, xaaladda ammaanka iyo arrimaha doorashooyinka. Waa 4 bisha January sanadka 2022. daawadayaasha qiimaha naga mudan oo barnaamijkeenan qodobada aynu diiradda ku saari doonno haddii Allaha awood leh u raali ka noqdo waxaa kamid ah wasiirka amniga ee xukuumadda Rooble oo dadaal xoogan ugu jira sidii loo furi lahaa terminalka Mofcon si halkaasi mucaaradka Soomaaliya lacaga fara badan loogu soo marsiiyo. Waxaan kaloo idin haynaa qorshaha cusub ee ku aadan furitaanka terminalkan, dib u furista terminalkan ee ay wadaan qaramada midoobay iyo AMISOM. barnaamijkeena ayaynu si gaar ah ugu falanqeyn doonaa. sidoo kale daawadayaal barnaamijka waxaan idinku soo gudbin doonaa 4 arrin oo xasaasi ah isla markaana horyaala shirka ka soconaya Muqdisho. mar kale daawadayaal soo dhawaada. daawada fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar, sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya. mahadsanid. aynu ku bilowno. sida ay cadeynayaan ila xog ogaal ah bilowgii toddobaadkan dowladda Soomaaliya iyo wakiilo ka socday beesha caalamka ee degan xerada Xalane ayaa ka wada hadlay qorshaha dib loogu howlgelinayo terminalka Mofcon ee garoonka aadan cadde, kaas oo albaabada la isugu dhuftay 24 December 2021. wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday dowladda federaalka ayaa kulan qarsoodi ah horaantii toddobaadkan UNSOM iyo AMISOM kula yeeshay Xalane, kaas oo lagu gorfeeyay sidii lagu hirgelin lahaa hanaan ciidan oo isku dhaf ah oo ka howlgala Mofcon. sida aan horey u sheegnay, mid ka mid ah qodobada ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya u cuskatay xiritaanka qaybtan ay adeegsan jireen AMISOM, UN iyo safaaradaha ajnabiga ee caasimadda degan ayaa ahaa in AMISOM hor istaagtay in booliiska Soomaaliya ka howlgalo qaybta hubinta terminalka. xoguhu waxa ay muujinayaan in hadda wakiilada shisheeye ogolaadeen in ciidamo Soomaali ah, gaar ahaan kuwa hoostaga qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir, la geeyo qaybta hubinta si dowladda federaalka uga warqabto waxa ka soo degaya iyo waxa ka baxaya qaybtan. sidoo kale dowladda Soomaaliya waxa ay si cad ugu sheegtay UN-ka in ay waajib tahay in ciidanka Soomaaliya ku sii tababarto shaqada qaybtan maadaama ay iyagu la wareegi doonaan maamulka Mofcon marka uu soo gabagababo howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Cabdi Saciid oo muddo dheer soo ahaa la taliyaha amniga madaxweyne Farmaajo ahna wasiirka hadda ugu dhow ee xukuumadda ku jira ayaa lahaa amarka lagu xiray terminalkan, taas oo xoojisay warar soo baxaya oo sheegaya in xafiiska madaxweynuhu uu tallaabadaasi ku hor istaagay lacag malaayiin dollar ah oo ka imaanaysa mid ka mid ah wadamada Carbeed una socotay mucaaradka, taas oo la doonaya in loo adeegsado doorashada. qorshaha uu wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur oo gacan saar la leh mucaaradka ku doonayo in lagu furo qaybtan ayaa sidoo kale sii xoojisay shakiga ku gadaaman lacagta la sheegay in ay ka imaanayso dalalka Carbeed oo xilliyada doorashada lacag xoogan siiya murashaxiinta u baratamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya. in AMISOM iyo wakiilo shisheeye hor istaagaan in booliiska Soomaaliya ka howlgalo qayb ka mid ah garoonka diyaaradaha aadan cadde waxay guud ahaan ciidanka qalabka sida ee dalkeena ku tahay niyad jab, waana tallaabo ay dad badani soo dhaweynayaan in askar Soomaaliyeed ka hortagaan waxyaabo aysan dowladda la socon iyo kontrabaan gudaha la soo geliyo. xilliga uu soo baxay amarka lagu xiray qaybtan uu shisheeyuhu adeegsado waxaa aloolsanaa khilaaf u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo hoggaanka AMISOM, kaas oo xoogaystay kadib raacdeyntii ku-xigeenka ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya Salmon Mulongo. hase yeeshee labada dhinac ayaa dhowaan tallaab hor leh u qaaday qorshaha kala guurka. sida ay ku doodayaan shakhsiyaadka u dhundaleela arrimaha sirdoonka, amniga iyo siyaasadda, waa waajib in wixii hadda ka dambeeya ay ciidamada Soomaaliya lahaadaan muhiimadda koowaad ee howlgalka qorshaha amniga dalka, isla markaana loo baahan yahay in xilliga doorashada aysan marti ka noqon kaalintooda amniga. weli daawadayaal barnaamijkeena maxaa cusub ayaad la socotaan, meel walbood joogtaan waqti wanaagsan ayaan idin leenahay. daawade fadlan hanaga iloobin channelka subscribe inaad noo saarto, sidoo kalena furo gambaleelka. aynu sii gudagalno. waxaa magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wadatashiga ee uu hormuudka ka yahay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo horyaalaan arrimo xasaasi ah. dabayaaqadii bishii December ee lasoo dhaafay ayuu ku waqtiyeysnaa shirkan, gaar ahaan 27 bishaas. hase yeeshee waa uu baaqday sababo aan si rasmi ah loo sheegin, balse la fahmi karay inay ahaayeen waxyaabo la xiriira khilaafka u dhexeeya madaxda ugu sareysa dowladda federaalka, kaas oo dabcan saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada.
inkasta oo ay jiraan qodobo aan war-saxaafadeedyada lagu qorin warbaahinta laga sheegin kuwaas oo mararka qaar u daadegsan hoos ilaa iyo kursi qof gaar ah lala doonayo ama loo diidan yahay, ayaa haddana si guud halkan waxaan kusoo koobaynaa dhowr qodob oo u badan arrimaha doorashada islamarkaana horyaala shirkan, waxaana qaarkood ay u muuqdaan caqabado waaweyn oo la isweydiin doono sida looga gudbi karo. Kulanka oo Muqdisho ka furmay waxaa isugu imaanaya ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Puntland, Hirshabelle, Jubbaland, Galmudug iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir. Qodobka ugu horeeya waa habraaca doorashada. Doorashada ayaa u socota si aanan jadwalaysnayn, waxaana soo badanaya cabashooyinka la xiriira habraaca doorashada. Doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la soo gabagabeeyay goor sii horeysay halka golaha shacabka ay weli socoto, inkastoo ay weli jiraan dhaliilo iyo cabashooyin hareeyay hanaanka doorashooyinka oo kormeerka uu ka ahaa ra-iisul wasaare Roble. Dood badan ayaa ka timid habraaca doorashada kadib markii kuraasta qaarkood uu ka yimid muran iyo isqabqabsi. Shirkan golaha wadatashiga qaran oo sababihii loogu baahday ay ka mid tahay arrintaasi lafteeda ayaa la filayaa in xal looga gaaro habraac sax ah oo loo maro doorashada. Habraaca hadda jira ayaa u muuqda mid maamul kasta uu u fasirtay sidii uu doonayo, islamarkaasina waafajiyay natiijada uu doonayo inay doorashada ka soo baxdo. Waxaana tusaale weyn ah habka xulista ergada iyo xaqiijinta tartan daahfuran oo qof kasta oo daneynaya uu musharax noqon karo, taas oo aanan meel badan ka dhaqangelin. Caqabadaha ay tahay in xalka loo helo ee dhinaca habraaca waxaa ka mid ah soo xulista ergooyinka iyo murashaxiinta kuraasta golaha shacabka. Guddiga doorashooyinka ayaa marar badan lagu cambaareeyay in ay hareer mareen habraaca la dejiyay. Kaalinta gudiyada doorashada ee heer federaal iyo heer maamul goboleed ayaa tan iyo markii ay doorashada bilaabatay u muuqday kuwa aysan hawshooda kala cadeen, islamarkaasna aanan la ogeyn kaalmaha ay kala leeyihiin. Waxaa aad u muuqatay in gudiyada heer dowlad goboleed ay lahaayeen awoodda inteeda badan, iyaguna ahaayeen kuwa go-aanka ka gaaraya natiijada kama dambeysta ah ee kuraasta la doortay. Gudiyada maamul goboleedyada u qaabilsan doorashada ayaa lagu eedeeyay in ay la wareegeen awoodihii gudiyada heer federaal loo igmaday. Madaxda shirka u fadhisa ayay hadda hortaallaa in ay go'aamiyaan kaalmaha gudiyada iyo in ay shaqooyinkooda kala saaraan. Waxaa kale oo xal u baahan khilaaf waayidii dambe ka jiray gudiyada doorashada oo sheegay inay xilalkii ka qaadeen gudoomiyahooda, inkastoo isaguna uu sheegay in uu weli shaqeynayo. Guddiga muranka ugu badan ka taagan yahay waa kan xalinta khilaafaadka oo uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ka saaray ilaa 11 xubnood. Sidoo kale shirka ayaa looga fadhiyaa in xal looga gaaro kuraas ka tirsan golaha shacabka oo doorashadooda la isku qabsaday. Arrinta kalena waa jadwalka. Gudiyada doorashada ayaa tan iyo 27 bishii May ee sanadkii hore soo saarayay jadwalo loogu talagalay doorashada oo qabsoomi waayay. Doorashooyinka oo waqti dheer soo jiitamayay ayaa marba caqabad horle la kulmayay. Tani ayaa ka mid ah howlaha horyaala shirka shalay ka furmay magaalada Muqdisho ee ay beesha caalamka taageertay. Marka laga soo tago doorashada golaha shacabka oo ay caqabado badan raagaadiyeen, ilaa hadda lama oga xilliga ay dhacayso doorashada madaxweynaha. Shirka ayay shalay ka qaybgalayaashu fikrado isku weedaarsadeen, balse ugu dambeyn waxaa laga rajo qabaa in jadwalka lagu cayimo. Golaha laftigooda ayaa shirkoodii ugu dambeeyay ku sheegay in muddo 60 maalmood ah gudahood lagu soo gabagabeyn doono doorashada, taasoo aanan fulin iyada oo ilaa iyo hadda aanan xitaa la dooranin kala bar xildhibaanada golaha shacabka. Qodobka kalena waa laba deegaan doorasho. Heshiiska Sebtembar 2020 waxaa lagu heshiiyey in doorashada lagu qabto laba deegaan doorasho dowlad goboleed kasta, balse ilaa iyo hadda ma jirto hal meel oo doorasho ka dhacday oo aan ahayn caasimadaha dowlad goboleedyada. Waxaa intaasi kasii daran in inta badan magaalooyinka kaalmaha labaad ku jira ay ka taagan yihiin qalalaaso amni darro ama caqabado kale oo siyaasadeed. Tusaale, magaalada Boosaaso oo loo asteeyay in ay doorasho ka dhacdo ayaa waxaa ka dhacay dagaal ay dad badani ku dhinteen, kuwo kale oo badanna ay ka barakaceen kadib markii uu dagaal dhex maray ciidamada BSF iyo kuwa daraawiishta Puntland. Sidoo kale magaalada Beledweyne waxaa ka socda weli dagaal salka ku haya diidmo la xiriirta maamulka Hirshabelle. Magaalada Garbaharey ayaanan weli xal rasmi ah laga gaarin, iyada oo uu weli ka taliyo maamul aanan hoos tegin kan Jubbaland, islamarkaasna guddigii doorashada qaban lahaa ay ku sugan yihiin Kismaayo, qof ka mid ahna ma uusan tegin Gado. Waxaa xusid mudan in shirkii May ee madasha la isku raacay qodobo lagu xalinayo khilaafka gobolka Gado, balse wax ka fulay aysan jirin qodobadaasi ilaa iyo hadda. haddaba daawada maxay kula tahay aragtidaada? fadlan qaybta hoose komitiga inoogu reeb. Barnaamijkana maxaa cusub aniga intaas barnaamijka mid ka xigeentan ku kulmi doona. Nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.